shaabooyin hor leh oo gantaalo iyadoo arrintan ay ku soo aadayso xilli ay cirka ku shareeran tahay xiisadda kala dhaxaysa Israa'iil iyo Maraykanka oo dhinaca waxay kaloo tani ku soo aadaysaa iyadoo Israa'iil walwal weyn ay ka qabto weerar Iiraan ay soo qaado xilli kasta wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan iyo waxa laga yiri ayaan idin soo gudbinaynaa Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa duqeymo ay ka geysatay waddanka Lubnaan in ay sababeen dhimasho iyo dhaawac Iiraan waxay ku eedeynaysaa Israa'iil inay ka dambeysay weerarkii toogashada ahaa ee dhimashada iyo dhaawaca sababay ee ka dhacay magaalada Sydney xeeb ku taal ee waddankaasi Australia dagaaladii ka dhex xaloosnaa Cambodia iyo Thailand ayaa lagu soo warramayaa inay xoogeysteen iyadoo qax far badan laga soo warinayo goobo ka mid ah waddankaasi gaar ahaan labada waddan xadka ay wadaagaan ugu yaraan 16 qofna waxay ku geeriyoodeen shil baabuur oo ka dhacay waddankaasi Indonesia dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka soo duway ayaa qadka ku jira axmed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn warbaahinta dowladda Iiraan ayaa soo xiganaysa dad marqaatiyaal iyo ilo kale oo sheegaya in gantaalo la tijaabinayo ay ka dhaceen magaalooyin badan oo Iiraan ku yaala telefishinka yiraahdo Nuur ayaa baahiyay fiidiyoyaal wax lagu tilmaamay gantaalo la ridayo hase ahaatee goobaha laga ridayo gantaaladaasi lama cayimin wakaaladda wararka ee Faris loo yaqaano ayaa iyadana ku warantay in gantaalada tijaabadooda ay ka dhaceen magaalooyinka Khorramabad, Mahabad, Isfahan, Tehran iyo Mashhad ilaa iyo intii dagaalka Iiraan ay la gashay Israa'iil juuntii la soo dhaafay ayaa Iiraan waxa ay aad u dardargelinaysay in ay qarsato tijaabada gantaaladeeda oo ay ka baaqsato in ay si rasmi ah u sheegto ama tijaabada gantaalo cusub aysan u dabaaldegin sidii hore u sameyn jirtay Israa'iil ayaa digniin ku bixinaysa ama digniin ku siisay maamulka Maraykanka in Iiraan ciidamadooda ilaalada kacaanka ay u isticmaalayaan dhorotuskani in ay bartilmaameed qarsoodi ka dhigtaan inay weerar ku soo qaadaan Israa'iil sida warbixinta lagu xusay ciidamada sirta ee Maraykanka ayaanan arag wax calaamada oo muujinaya in Iiraan ay weerar qaadi rabto sida ilo Maraykanku dhow ay sheegaan Senator Maraykan oo leeyahay Lindsey Graham ayaa sheegay in gantaalada Iiraan ay awood u leeyihiin inay ka gudbaan nidaamka difaaca cirka ee waddanka Israa'iil digniintaasi ayaa uu ku sheegay in Iiraan ay dardargelinayso barnaamijkeeda nukliyeerka oo ah arrin khatar ah sidoo kale waxa ay dardargelinaysaa taageerinta nukliyeerkeeda waxa uu ka hadlayay ama la hadlayay wargeyska la yiraahdo Jerusalem Post Graham ayaa sheegay in Israa'iil iyo dowladda Maraykanka ay waajib tahay in ay san u ogolaan Iiraan inay horumar ka samayso awoodeeda gantaalada wuxuuna intaas ku daray wax walba oo nugleynaya Israa'iil sidoo kale waxa uu nugleynaya dowladda Maraykanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa la filayaa inuu wada xaajood barnaamijka gantaalada Iiraan uu kala yeesho madaxweynaha Maraykanka Donald Trump kulanka uu ambabaxayo bisha dabayaaqadeeda oo Washington lagu qabanayo Graham ayaa sheegay dowladda Maraykanka inay bartilmaameed ka dhiganayso isbedelka ku imaanaya barnaamijka nukliyeerka Iiraan oo ay ku jirto in lagu biirinayo khatarta gantaalada Iiraan ay samaysato ayagana soo taraya abaanduulaha ciidamada Iiraan Cabdiraxmaan Musavi ayaa ku eedeeyay Israa'iil inay ka dambeysay weerarkii dhawaan ka dhacay xeeb ku dhow Sydney December 14keeda wuxuuna sheegay in howlgalkaasi ay tahay mid ay ku talagashay in ay ra'yi caalamka marin habaabiso Israa'iil hadalkiisan ayaa la sheegay mar uu ka qaybgalayay munaasabad saraakiil ka qalin jebinaya kuliyadda ciidamada ilaalada kacaanka sida laga sii daayay telefishinka rasmiga ah ee dowladda Iiraan Musavi ayaa ku eedeeyay
Israa'iil inay bartilmaameedsatay Yahuudii ku noolayd Sydney macluumaad been habaabina marin habaabina ay baahinayso oo ay iska dhigayso in ay tahay dhibane looga soo horjeedo cunsuriyad Yahuud nacayb wuxuuna intaas ku daray weerarkii ayaa looga gol lahaa in laga joojiyey dadka Yahuudda ee dib u haajiraya in ay joogaan Israa'iil wuxuuna ku andacooday kacdoonka Israa'iil gudaheeda ku jira iyo Israa'iil oo iska dhigaysa inay tahay dhibane ayay rabtaa inay u muujiso caalamka wuxuuna sheegay in Israa'iil ay mar horeba howlgalla saas oo kale hadda ka hor samaysay December 14 toogasho dhacday ayaa wiil iyo aabihii waxa ay weerareen dadka qayb qaadanaya Hanukkah munaasabad la yiraahdo diimeed oo ka dhacaysa xeebta Bundi koonfurta New Wales South New Wales meesha la yiraahdo waxaana ku dhintay 15 qof sida laga soo xiganayo warbaahinta maxalliga 3 qof ayaa geeriyooday kadib markii Israa'iil ay weerar la beegsatay gaari marayay koonfurta Lubnaan sida laga soo xiganayo warbaahinta rasmiga ee wadanka Lubnaan ee NNA la yiraahdo weerarkaasi ayaa la beegsaday gaari ku safriyay wadada Qantara ee gobolka Sidon sida wakaalada wararka Lubnaan ku waramayso militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkaasi looga gol lahaa xubno ka tirsan ururka Xisbullah ee ku sugan deegaanka Sidon wasaatee wax faahfaahin oo dheeraad laga bixin sidoo kale xaqiijin kama ay soo bixin dhinaca Xisbullah ee la xiriirta waxyeelada gaartay dadka la beegsaday weerarkan ayaa waxa uu ka dhigan yahay in xuduudka xadgudubyada ka dhacaya uu si ballaaranayo waxaa kaloo la sheegayaa magaalada Sidon inay 30 kilomitir caasimadda Beirut ka jirto koonfur xukuumadda Lubnaan ayaanan soo saarin magacyada dadka dhibanayaasha ama dadka dhintay iyo dadka wax badbaadiyaasha ayaa ka shaqeynaya goobta weerarku ka dhacay wax faahfaahin oo dheeraadana lagama hayo baaritaan ka socda wararka caalamkan waxaa kamid ah Iiraan 16 qof ayaa la dilay 18 kalena waa la dhaawacay kadib markii shil bas oo ka dhacay bartamaha gobolka Java ee wadanka Indonesia sida laga soo xiganayo saraakiil maxalli ah bas qaada rakaab ayaa ku dhacay wadada meel loogu talagalay in lagu kala leexdo kadibna gudoomay 34 qof ee rakaabka ayaa ka soo amabaxay magaalada Jakarta ee caasimadda waxayna ku socdeen magaalada Yogyakarta sida telefishinka maxalliga uu ku waramayo dadka dhaawaca ayaa lala gaaray isbitaallo deegaankaasi ka dhawaa sababta keentay shilka wali waxaa lagu tilmaamay inay tahay baska oo xawaare xoog leh ku socday dagaal cusub ayaa ka dhex dilaacay wadamada Thailand iyo Cambodia oo xuduudka uu dagaal xoog leh ku dhex marayo iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada loo yaqaano ASEAN ay joogaan labada mas'uul ee ka tirsan labadaasi dowladood dagaalkan ayaa waxa uu khatar gelinayaa dadaalka diblomaasiyadeed ee la rabo wadamada ASEAN inay ku dhexdhexaadiyaan ama dib u soo cusboonaysiiyaan xabad joojintii dhowaan ay dhexdhexaadiyeen dalalka Malaysia iyo Mareykanka colaadan ayaa dib u bilaabatay December 8 dadka dhintana ilaa haddeertan ugu yaraan waa 40 qof waxaana ku barakacay dad ka badan 1 milyan Cambodia wasiirkeeda amniga qaranka wasiirkeeda difaaca qaranka ayaa ku eedeynaya Thailand inay diyaarad F-16 ay bombooyin 4 ku rideen deegaanka la yiraahdo Pattaya Menjai iyo gaasas sun ayaa iyagana waxa ay ku rideen buu leeyahay tuulada la yiraahdo Prejan sida laga soo xiganayo wakaaladda wararka ee rasmiga ah وهجاك محمد عاد بعض ما حسنت هاي داوديال شيء ويبقى سيهين وحنقول بين داوديال فرقيته وركه هاي الشيء انت نقول بين أي نكوها كانوا قدر حيسين